jiray shakhsi ku iman jiray inuu yeesho gurigiisa uu leeyahay ilaa yaraantiisii waxa uu ku fikiri jiray inuu yeesho gurigiisa uu leeyahay si uu ugu noolaado farxad iyo qanacsanaan inta ka dhiman noloshiisa markii ay da'diisu 18 sano gaadhay waxa uu ku fikiray inuu raadsado shaqo waana sii dhacday oo waxa uu helay shaqo waxa uu iska bedelay shaqo ilaa shaqo muddo 10 sano ka bacdi ilaa da'diisu ay gaadhay 28 sano dadaal badan ka bacdi iyo shaqo badan ka bacdi hadda waxa uu awoodaa oo uu haystaa lacag uu ku rumayn karo riyadiisii oo ahayd inuu guri dhisto maxaa uu sameeyey waxa uu soo urursay dhammaan maalkii uu shaqaystay waxaana uu ku ritay boorsadiisa waxaana uu u baxay si uu raadiyo dhul ku habboon oo uu wax ka dhisto siduu u socday ayaa waxa uu arkay dhul qurux badan oo cajabiyey aadna u cajabgeliyey uuna ka helay waxaana uu yidhi halkan waa halkan ka dhisan lahaa gurigaygii riyada waxaana uu go'aan ku gaadhay inuu isagu gacantiisa ku dhiso dhammaan wixii agabo baahnaa ee aqal lagu dhisi lahaa ayaa uu soo urursaday waxaana uu bilaabay dhisitaankii aqalka oo shaqadii ayuu guda galay dhagixii koowaad marka uu dhigay qof ayaa la hadlay wuxuuna ku yidhi maxaad dhulka ku samaynaysaa waxa ugu jawaabay shakhsigaasi dhulkan waan ka helay sidaa daraaddeed waxaan rabaa inaan ka dhisto gurigayga gaarka waxa ugu jawaabay shakhsigii kale maya dhulkan waxaa iska leh nin wuu imanayaa dhowaa ama dheera maalin imanaya sidaa daraaddeed dhulkan hadhisan waxba kama soo hadal qaaday halkiisii waana iska dhagamariyey in badanna dad badan baa u sheegay intuu dhisitaanka waday waaryaa hebelow ka daasnan gurigan dhulkan dad baa leh ee hadhisin ugu dambayn saaxiibkeen aqalkii waa dhammaystiray dibadda ayuu kasoo istaagay waxaana uu u jaleecay oo waa uu eegay wuxuu yidhi maxaa kaa qurux badan aqalkaygow iyadaydii hadda ayay ii rumooday wiilkan iminka waxa uu dhisay aqal qurxoon laakiin xasuusnow isagu waxa uu iska leeyahay dhismaha aqalka ee ma laha dhulka ugu dambayn waxa yimiday oo akhbaartii gaadhay mulkiilihii dhulka waxaana uu yimiday ninkii waxaana uu weydiiyey sababta uga dhisay dhulka aqalka waxa uu sheegay in dhulku cajabiyey aqalkana uu dhisay isagu labadii qof way isqabsadeen shakhsina wuxuu yidhi waxaan leeyahay dhulka shakhsina wuxuu yidhi waxaan leeyahay dhismaha muran badan ka bacdi waxa uu u sheegay shakhsigii dhulka lahaa inay gaadhi doonto arrintani maxkamad ugu dambayn waxaa gurigii iyo dhismihiiba yeeshay shakhsigii mulkiyadda dhulka lahaa waxaana uu ka faa'iiday inuu isagu dhulka lahaa saaxiibkeen waxa soo wajahmay walaac culus waxaana uu arkay riyadiisii uu yaraantii lahaa oo hortiisa ku burbasa iyo maalkuu soo shaqaynayay muddo dhan 10 sano ah oo ka burburtay haddaan fikirkaaga ku weydiiyo waxaad odhan doontaa shakhsigan isaga ayaa ahaa maalaawe ama axmaq maadaama oo uu ka dhistay dhul aan dhulkiisa hayn dadkuna ay u sheegeen inuu qof kale leeyahay haddaba tani waata dadkiina inagu dhacda kuna dhacda dadka dhammaan markaanu jeclaano qof aan inay jeclayn ama aynu ku ogaano asxaabtiisa khaaska u dhow ama isaga laftiisuba ha inoo sheego waxaana aad la mid noqonaysaa shakhsigaas oo kale oo waxa aad tahay qof dhisaya guri kana dhisaya dhul una lahayn maadaamood og tahay qofkan inuu adiga ku sugnaanayn tusaale kale aynu soo qaadano si macnawiya adiga la socdo xaraka koob qaran inta xaraka koob shaab ku jira laakiin labadooda aragta koobkaasi waxaan ka soo qaadanaa shakhsigii jacaylka badan hayay ee muxubada qofka u hayay shakhsigan hadduu qofkan siiyo jacaylkiisi waa istimaya sooma haddana uu siiyo waa istimaya
qofkan hadduu soo celiyo qof isma dhimayo laakiin hadduu ahaado daraf keliya oo qofkan keliya siiyo maxaa dhacaya u dhamaanaya soo maa xubada qofka way ka dhamaanaysaa saa darteed isku bedeli hadhow noole manaashiyo micnaha nacayb isku bedela kaasi waa mawduuceena maanta adigu haddaba waan ku ogahay waxaad leedahay mashaariicdeeda ayaa xigta ama dareenada ayaa xigta qofka maadaama aanu jeclahay anigu community kaamina u istaagina wax jeclaato laakiin waa inuu ahaadaa haddaad wax jeclaanaysid jacayl min darafeyna labada dhinacba ka socda mahadsanid ku nooloo jacayl maca salaam